wasiirka khayraadka biyaha Soomaaliland oo maanta waraysi khaas ah siinayay TV-ga caalamiga Rayo mudane Baashi Cali Jaamac ayaa cadeeyay inuu shaqadii ka joojiyay agaasimaha guud ee wasaaraddaasi khayraadka iyo biyaha Soomaaliland waxyaabihii uu cuskaday uu shaqada kaga joojiyay isagoo faahfaahinaya waxa uu yiri sida tan agaasimaha wasaaradda iyo madaxda wasaaraddu way ka warhaysaa wasiir dawlaha everybody shan jeer baa la isu keenay mar walba wax alla wax kastoo lagu heshiiyo isaga ka baxay kaba dambaystii wuxuu gaaray anigoo ku maqnaa diiwaangelintii iyo safaradii bariga inuu budgetkii wasaaradda oo dhan ku talagalay inuu rido waxaa jira riig madaxweynuhu dhagax dhigay oo budgetkii wasaaradda cali ciise inuu ku yidhi ninkii qandaraaslaha waxaanba doonayaa inaan budgetka rido isagoo aan iga fasax qaadan ayuu iska aaday meesha la yidhaahdo Nairobi iyadoo oo shaqo badan wasaaradda u taalo waxna u sheegin cidna kaga tagin xilka dhanka kale maraan wax ka weydiiyay ceerashii ka socday gobolka Awdal ee wasaaradda khayraadka biyuhu ay ka fulisay waxa uu yiri sida tan waa la furo biyihii soo daayay ka kalena wuu socdaa 18 ceel oo noocaas oo la dhameeyay ayuu ka mid yahay oo laba saddex ay hadda wali biyihii si fiican looga soo saarin laakiin 18 ceel baa lagu guuleystay gobol walbana way ka qodan yihiin waxaanu kaloo ka soo anagoo isticmaalayna hay'adda Islamic Relief waxaanu 6 ceel oo kalena dhinaca Garowe kala soo wareegnay maadaama ay dhinac ka mid ah nagaba haystaan dhulka Somaliland ama wadi ay sheeganayaan marka 24 ceel oo casri ah ayaanu halka ka hirgelinay Islamic Relief sameeyay waa kuwa maanta laga biyo dhaaminayo waa kuwa abaarta lagaga baxay waana wasaaradda ugu budgetka yar وانا وزارة قولها لبلا قيستي وزارة ولي بقى قيب هيستو حنانو حلو عيال البيق ودا باسو عيال البيق ودا نمبين بو قوستي عمر شافي TV-ga caalamiga Rayo عاصمة Soomaaliland Hargeysa